gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan xubno ka socda xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo ah madal ay ku midaysan yihiin dad qiimo leh oo hore madax sare oo dawladda u ahaan jiray sidaad arkaysaan iyo dad aqoon-yahaniina oo qabata marmarka qaarkood doodo bulshada runtii ay ku wacyigelinayaan annaguna baryahan dambe waxaanu wadnay reform aanu ku samaynaynay warbaahinta dawladda iyo qaabkay u shaqayso iyo barnaamijyada ka baxa tayayntooda ayaanu wadnay maadaama aanu furnay channel cusub oo Somali National TV 2 waxa siyaasadda wasaaraddu tahay in la xoojiyo doodaha lagu saxayo ama lagu horumarinayo bulshada wacyigelinta ay u baahan tahay akhbaaraadka ay u baahan tahay waxbarashada ay u baahan tahay dhinaca dawlad dhiska iyo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo dastuurka aqoonta ay uga baahan yihiin nidaamka dawliga ah sida uu shaqeeyo ayaanu wadnay sida ku cad sharciga hadda madaxweynaha saxiixiisa sugaya oo madaxweynuhuna soo iga ballan qaaday uu saxiixi doono dhawaan warbaahinta dawladdu waa warbaahin bulsho weligeedna way ahayd Soomaalidu laga yaabay inay perception iska qaadato oo fikir ka qaadato laakiin warbaahin qaranka Soomaaliyeed leeyahay weeye warbaahin shacabka Soomaaliyeed leeyihiin weeye sharciga hadda ay golaha wasiirada iyo labada aqal ansixiyeenna waxa ku qoran inay noqoto warbaahin bulsho ama public broadcasting bulshadu taladeeda ku socota bulshadu leedahay oo danaheeda ka shaqeysa annaka iyo madasha oo runtii dad badan oo background ama maaragtay taariikh warbaahineed leh waxaanu ku heshiinay inaan wada qabanno barnaamijyo waxtar leh oo wax dhisaya dawlad ahaan waxaanu furanno soo dhaweynaynaa kuna qasbannahay inaanu soo dhaweyno fikirka wax dhisaya iyo fikirka tala fiican oo wax dhisaysa bixinaya taasoo xaruntani magaceedu yahay waxaanu ku heshiinay wixii hadda ka dambeeya ama wasaarad ahaan waxa noo siyaasadda inaanu qol siino ay fikirkooda ku soo jeediyaan dadka waxgalka ah ee bulshada wasiiradii hore dadka aqoon-yahaniinta xirfadaha kala duwan ee bulshada lagu dhisayo dadka leh inaanu room ama qol ay warbaahinta dawladda ay xaq u leeyihiin ay ku sii daayaan inaan siino away siyaasadayadu iyaga iyo intii kale ee waxgaradaba waxaanu samayn doonaa dad badan oo aqoon leh oo talada bulshada ka mid ah oo aan shaqaale ahayn baa halkan ka qaban doona debates doodo ka qaban doona warbaahinta dawladda doodo ka qaban doona escape-ka iyo nidaamka horumarsan ee aanu hadda u samaynay dadka waxgalka ah ee gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga inay wada xidhiidhaan dadka qiimaha leh ee Soomaali diasporaha ama jaaliyadaha Soomaaliyeed ay halkan ku yeeshaan door waxaan ku faraxsanahay midna gudoomiye ku-xigeen midna wasiir inaan maaragtay maanta wada hadalkan galno oo wixii hadda ka dambeeya ka wada shaqeyno sidii bulshadeena aynu u wacyigelin lahayn bulsho wacyi gashan oo sida bulshooyinka kale midaysan danahooda qaran u midaysan inaynu ka wada shaqeyno ayaan aad ugu faraxsanahay wasaarad ahaan iyo dawlad ahaanba waa wada qorsheyn doonaa tii way fadhiyaan agaasimihii guud iyo agaasimayaashii warbaahinta iyo aqoon-yahaniin kale wasaaradda aynu ka wada shaqeyno oo maalinba ama bishiiba 2 jeer wada qabanno debate qiimo leh wasiirada looga baahan yahay iyo dawladda wakiiladeeda looga baahan yahay inay bulshada la hadlaan wasaarad ahaan aanu ku dadaalayno ilaa ra'iisul wasaaraha inaanu doodaha qaarkood inay yimaadaan oo bulshada kala qayb qaataan aanu ka shaqeyno taasaan ku shaqeyn doonaa insha Allah wixii hadda ka dambeeya aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idinku amaanaynaa imaanshaha iyo fikirka wanaagsan ee aynu maanta ka wada hadalnay